horta mahad gaar ah baan mar labaad iyo mar saddexaad baadan Voice of Somali Community nahay walaal adigu caynana iyo caynawiya iyo TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland aan mahad gaar ah ugu celinayna maamulka iyo teamkaba walaal waxaan rabnay arrin yar oo fariina hadii waqtigu noo saamaxo inaan ku darsano codsi walaal dhiban oo Norway oo badkoodii laga qaatay oo dhibaatooyin badan loo geystay oo xuquuqda aan la marsiinin oo iyagu markii hore markay wadanka Norway soo qaxeen ilmahooda magangeliyo iyo waxbarasho iyo mustaqbal fiican ay u helaan laakiin markii ay meeshii yimaadeen waxii ubadkoodii ay kala soo carareen xabadda ay meeshii sidahayeen sharciga kala dambeyn baa jirta in awood loogu taageersado oo hooyooyinka dhiban iyo waalidiinta dhiban inta ubadkoodii laga qaado waliba xarigna loogu diro marmarka qaarna inta xarig loogu markay dhameystaan deportation ama dib loo celin loogu sameeyo caruurihii qaar aan Soomaali ahayn loo dhiibo oo marka xitaa qaar sida hadda xogaalada nagu soo gaadhay qaar ay diintii ka bixi karaan oo ilmihii uu ku dhulmi karo baan rabnay walaalahaas aan u ololayn inuu dhibkaas rabnay inaan la qaybsano marka waxaan ku codsanay dawladdan aan joogno anagoo sharciga saxda marayna inaan banaanbax sameeyno marka banaanbixii waa nala ogolaaday 15 bisha Febraayo wuxuu ka dhacayaa safaaradda Norway Victoria ku taala waxaan ku codsanaynaa walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan Ingiriiska jooga inay hooyooyinka iyo abayaasha dhiban meesha ay taageen ay istaagaan oo hooyo waliba ama aba waliba uu dareemo haduu maalinta chance leeyahay fasax leeyahay in codkiisa ku taageero hooyooyinka ubadkoodii ka maqan yahay oo la soo garab istaago oo codkayga gaarsiino waxaan xitaa meel badan baan gaarsiino Australia oo ka dhacay banaanbaxaas Canada oo ka dhacay Mareykanka sidoo kale aan banaanbax halka lagu joojinin oo waalidiinta la garab istaago